maamulka saaxiib yalla inda jacayl waa ku salaamada barasho wanaagsan soo dhawow maadaama inda jacayl ku qoratay yani nin khabiir ku ah arrimaha jacaylka u maleynaa inaad tahay inbaad waxaa tiri jacaylku waa qalbiga anu qalbigaaga inta kala jeexay jacaylka ma dhibaaray ficilka u baahana ay tusay jacayl u yahay hay aduna arrimida waxa ku soo koobtay jacaylku waa qalbiga on jacayl caloosh amiyaa jira mid madax amiyaa jira jacaylku bal wuxuu yahay noo sheeg حتى هذا قلبي كأني بعمر شيء الله يرحمه كرسوني ذا يا وحوين شعائر كل جوش شيء حتى قلبي كهدي لقي ماضو والشيء الله يرحمه كرسوني ذا إن لين يرتين بدنا إمك وحيسكو قبل صدان ما حد يسوي عويدي هذا نعاو كامغنا هذا واحد يورنا ستا عنده ما حد يسوي عويدي يمشي ميل بود ميريسن ميل بود كم مغنيت ميلهم بتكوريكتي متكل لا جوجتي لكن سكرسوني مركز كو قبتيد كليا تحت قف كاغو هكو كامغنا هذا شن شويك ان هذا كرسوني كو قبتيد لا حبي الشعر كاغا سو جيري markaas shayga la dhaafay sidoo shan cisho oo maqnaanaya badayna iska war hayno weeyaan shan cisho ma maqnaan karayay waa inuu iga war hayo wuxuu ku leeyahay asaga wuxuu ku leeyahay kalsoonina qof la hadlayo midaan kala hadlayo ayaa ahaba midaas waa degdegaysaa taliya laakiinse degdeg mar ma fiicna qofka waxba ku dhici kara familkiisi wax ku iman karaan mobil aan ba dhici karta tuug baa heli karta saacad dhakhtar baa la dhigi karaa aanad adigu ogeyn badana imika dadkeena dambe qofkii la sheekaysanayaan qof u dhow lambarkiisa ma hayaan oo guriga la joogo oo magaranaysa hadii aad weyd aad ka wici kartid dadkeenii hore waxay ku fiicnaayeen ama dhalinyarteennii hore waxay ku fiicnaayeen waxay ku bariyay walaalkii waa ku bariyay washii waa ku bariyay hadii aniga weydada soo wardoonaysa laakiin taliya kalsoonidu marnaba no hoos okay so hadda maxaa leedahay dadka oo meeshaas oo dagla sheegay jacaylku waxa ka qanaana mas jacaylka noo sheegaysa wuxuu yahay jacaylku wuxuu yahay ma ku sheegaya dadka reer mudug jacaylka waxa ay ka qanaan laakiin xageena ma ay dadkeenan reer mudug ma taawno no ariga xana ay reesmala okay mudug ma tagta wali ماشي ولا متين مال أتيك سووا قبضة أصحاب ما كلهم صاحب جوار مدو قل ما أشكانسته ما في كاسة أوكي لكن إذا صبرت مع جعل كوحوية سواء قبضة إن جعل بحال مرة بعمد أرجع على قفك كجعل شمبر هدو كامل هذا هرتنيو qofka inaad raadsid ma aha macnahaas hadda maanta gabadha aniga aan la sheekaysto ama aan jeclahay ma aha de inaan raadinta aan raadinayo inaan macnaha isleeyahay meel kale jirtaa qof kale ku maqan tahay waxa ula kala jira inaan isleeyahay aniga qofkan nolosheeda macnaha qofkan markaan jeclaado oo si dhab qofkan u jeclahay oo really u jeclahay iyo moogtahay sheeko dad qof aad dhawaan isbarteen oo kale ama sheekaysataan oo ama dhowrkii maalin amar isoo qabataan iyo qof aad jeceshahay oo waqti kasta aad ka fikirtid oo adiga aan ka dhamaan oo hadduu ka maqayaa xataa niyadaada ku jira ama aad ka fikirtid ama aad xasuusatid mar walba macnaha hadaad raadisid ma ka dhigna inaad qofkaas wax kale ku tabaysid laakiin qofka aniga ii dhow oo gabadhaha iga dhow oo muxuu qalbiga iyo rabitaankaygu doortay xaaladeeda inaan ka warqabo inaan la hadlo haddii wax aan waayo maalin ama caawa anoo aan waayo taleefkeeda qaban weydo ama uu darsan yahay kama first intaan ka fikirinba ama aan isdhihin meel kale ku maqan tahay maxaa u kala jirta ayada maxaa ku dhacwa inaan isweydiiyaa qofka waxbaa ku dhici kara waxa waaye khasab waa inaan ogaado markii seexanaso inaan ogaado inay nabad ku soo kacday inay nabad ku seexatay haddii aana waqti badan wada hadlin inaan subaxdii oo kale markay soo kacdo aan waco deebsee tahay maxaa kusoo toostay xaaladda ka waran fiican tahay kuluseel bu yahay nabad qabtaa saakan quraacatay markasta fiiri markasta inaa wacdeen maxaa qofkaas aniga maxaa qof أصحاب عن هاي بليرة أمي أمريكا 5 ديفز كم قناة مع إيش شيء فيري إذا بيني
فيري هل مران واحد مقدر سنكرا ونيكا سؤال marka jawaabo ku danfay ay diyaar ay ku soo waayahay waxaan u malaynayaa saaxiibkaygaasi jacaylkiisu inay committee ku jirto ama uu rabo inuu iska dhaadhiciyo maarish waayahay si fiican buu hadlay taliya saasadin may horta hadalkayga dhamaysto markaas aad hadlaysaa taliya ku soo taliya dhamaysto waa kaftan waxaan rabnaa asxaabteena iyo dadkeena wayna madadaalin saaxiib anigu waxaan run baan kuu sheegayaa anigu xiriir baan leeyahay xiriirkan leeyahay waxa weeyaan qofaan jecelahay iyaduna way jeceshahay waan ogahay way ogtahay anigu haddii xataa shaqashaysa bil aan ka maqnaado inaanan meel ka aadin gabadh kalena ka shukaansanaynin way ogtahay aniguna waan ogahay haddii ka maqnaato inaanan nin kale eegaynin waayo kalsooni aan siiyey iyo kalsooni ay siisay ayaan heerka ku gaarnay saaxiib adigu haddii aanad ka seexan karin oo aad leedahay markii soo kacdo ma soo nabad toostay markii seexanayso ma seexanaysaa adoo caafimaad qaba ma cashaysay ma qadaysay ma quraacatay saaxiib midaas wax laga yaabaa xiiso jacaylka noocaas markasta la iska fikirna waxa weeyaan jacaylka markiiba burbura wallahi run baan ku sheegay saaxiib anigu xiriidho badan waan soo maray nin dhalinyaranahay dhaawacyo badan way isoo gaadheen markaas saaxiib anigu waxaan leeyahay لاعب سوجا ما سليناتي لاعب سوجا واتني اوي وانيكي ugu horeeyay aan arko firi jacayl ugu khiyaar ay ku soo inuu saaxiib horta waxa waaye waxa tiraahday maxaa yiraahdaa ma ku soo gubtay jacaylka ilama aha ama de macquul wax dhici kara waaye laakiin aniga macnaha horta qof kasta dabeecad buu leeyahay ama qaab waxaa jirta uu falgalo markuu relationship samaynayo ama xiriir ama jacayl uu samaynayo aniga heer guur baan ka gaaray shukaansi iyo waxaasawo iyo jacayl nooc aanan ka soo gelin ma jirto ma garatay laakiin middaa kuu sheegaa waxay tahay wax adiga aa isku khasbisid maaha wax anigu aan maanta qofka gabadha aan jecelahay wax inuu maskaxdayda aan gelinayo oo intaa isku programyo markasta wax ma aha wax si dabiiciya kugu jira waxyaalaha caadiga ah u sameyn sidoo kale kamida kasoo qaad hadda inaad qubaysatid maalintii inaad timaha shalaysatid inaad waxa waaye dharkaaga habhabaysid inaad dhar wax normal maaha waxay la mid noqonaysaa taasoo kale sababtoo ah wax naftaada markay wax ay la falgasho waqti kasta oo aad qofkii tabaysid oo aad muxuuhaa u xiisisid oo aad hadalladiisii aad jeceshaha markasta inaad maqashid waa ku khasbantahay inaad raadsid waxaa tiri bil waxay og tahay markasta weli waxaa ku dhegan tahay inuu dhinacii muxuuhaa positiveka ahayo kalsooni darradii ba ku dhegan tahay haddii dee bil maxaa qof bil kaa maqan maxaa qofka caadiga oo aan sida caadiga asxaabteeda caadiga baana kala maqnaan inaa iska warqabna maahane marka walaalkayo waxa weeye kaas jacaylku ma aha bil kaa maqnaanayo oo aad leedahay waxay og tahay qofka adiga haddeertaan waxaa laga yaabaa inaad is leedahay gabar haddaa baratid ama maanta gabar isbarataan ama gabar aad ka heshid adigu ujeeda inaad jeclaatay waxaa laga yaabaa inaad istiraahdi jacaylkaaga hawo tusin haddii kale way ismahadinaysaa ama way isla tegaysaa sidaasaa isku programsay adoo qofkii la hadlaya 2 minute kadib waxaa is arkaysaa adoo wada baxan oo islaaweba oo banaan iskigiyo caadi u istaagaya is arkaysaa marka waxaa jacaylka lagu leeyahay ma ahan wax la isku dhalin karo wax la iska burburin kara maaha waa wax si dabiiciya naftaada u galaya oo goor hadalku kaa tegay aadan garanaynin goor qofku wuxuu ku yiri aad qaadatay aadan garanaynin marka waana xaalad xun oo wallahi xaaladaha la maro ugu qaraar weeye marka waxaa ku leeyahay walaalkayow qoftaa bil kaa maqan waxba kuma hayso saaxib wallahi billahi qof bil baa tiri qof kaa maqnaanaysa adiga haddaadan raadin xataa adigan waxba u haynin waa hadli kartaa jacayl waa laga fogyaha maleynaa miskiinka isuga mid idin sheegaya horta hadalka marka laga yimaado naftana loo yimaado waxyaalaha aan la yaabayso waxaa kamid a aniga hadda ugu badan oo been idin sheegi baan ku naco waxaa kamid a
horta xiriir iyo jacayl marka jacaylka horta wax lagu tashado ma aha oo qof intaad maanta ku heshiisaan hebelow ama heblaayi isjeclaano wax horta lagu heshiiyo ma aha jacaylku horta waa wax yimaada asaga labada qofna hal mar kuma wada dhacee maaragtay qof unba ku hormaraa xiriirka markii la dhaho waxyaalaha la yaabiso waxaa ka mid ah dadka xiriir kale ama wax wadaagaya intaysan isguurka ka hor guurka kadib wax kasta waa laiskugu dulqaadan karaayo waa dad noloshii wadaagay wey laakiin guurka ka hor waxyaalaha aan la yaabayso waxaa ka mid ah markii lagu soo waco meesha xaaladaada la wareysan lahaa ama faamiliga iska wareysan lahaydeen si kasta iskugu xanaaqsanta horta marka hore qofka inaa wareysatid oo xaaladiisa oo qofka waxbaa ku dhici kara waxyaalaha la yaabis marka waxaa ka mid ah yaa ku soo wacay mashquul baad ahayd yaa maaragtay xaggee jirtay markaan kula hadlay teleefonkaaga yaa kaa xisaabin iyo dagaal baa mise waa dadku inay nasteexa iyo naxariis iyo wadahadal iyo kaftan iyo qofku isku dhucu waa imaan kara dadku waa isku dhici kara laakiin haddana waxyaalaha aan la yaabayso waxaa ka mid ah xiriirada hadda maanta jira wuxuu noqday xanaaq iyo dagaal socda waa laiswacayaa ayagoo laisdagaalsan yahay lakala tegay way yar tahay in ayagoo inta laiswaco hadhowdii caadi laiskula hadlo ayagoo la faraxsan yahay lakala tago way yar tahay dadka intaa isticmaala marka wixiiba hadduu dagaal noqdo gabadhiina la dhahay xagee ku maqnayd intaas xaggeed jirtay barashar la saarayo marka laisku yimaado hay teleefonkaaga idib aan baare whatsappkaaga kan kala baare laisdhahayo uusan nasteexay naxariis iyo wadahadal joogtaa uusan ahayn hadda xiriir ma ahana kaasi waa dagaal socdo waa waxa maanta jira qofka anan ma aqaande inaad dabeecadeedu xun tahay inay si kala tahay ma sheegi kara laakiin qofka waxyaalahaas ila yimaado uma arka aniga qof wax wanaagsan ama xiriir wanaagsan la rabo ma aha qofka ku xisaabinaya ama dagaal kula gelaya waa qof asagiiba dee u socda buuq maskax waa nacaysaa runbaa fiican meesha jeclaan lahayd waaba sii nacaysaaba qof intuu dagaal kula soo aaday ma fahan fikirka hadday la qabtaanna waa meeshiisa haddaan keli ku ahayna ii sheeg ubane ka fogeeda muriga gala waa heer king mame waxaan yidhi raanadayrafanbeed horta ninka mamba ayaaba wixiiba dhamaystiray laakiin sharmana waa la qabaayo qof kan horta haddaad aragtid qof horta qofkaad la shaqays maxaa qofka xiriir la leedahay ama la shaqaysanaysid hadduu qofku kugu kalsoon yahay uu ku xisaabinayn halkaad ku maqnayd maxaad fogiga ama ma ku soo buuq kula soo galayo qofkaas maaha horta waa dad waxa qofkaas uu ku jecel yahay laakiin qofkaas kale kama bahelo horta isku mid baan halka sharmaako laakiin waa sidoo mambe sheegana qofka la sheekaysanayo tusaale waa qofka wax dabiici yani bil in qofka maqnaado ama aad shan cisho weydid wax wanaagsan ma imika tusaale ahaan maano shaqo ku jira marka shaqada uga baxo aan cadaydo aan meedho inta seexan ka hor baan wacaya gabadhan wada sheekaysana wada socono hatta shaqada kiimida oo si seexanaya qurxay bababa hadda toolaadana markaan soo tooso automatic anoonan kicin marka soo kaco waa inaan wacaan xaaladeyga maaha inaan saacad 2 saacadood lahaad laakiin 5 minute oon xaaladeyga waraysto la yara sheekaysto say tahay kabacdi on kala tegina mar walba waa inaan codkayga maqlaa soo saadiga la nolosh macaanba ma leeyahay ma socon karabe laakiin qof bil laga maqnaanayo taas kalsooni lama dhigi karo qofkaas waxa la dhigi karaa waa maxaa la yiraahdaa hal wax ma ku darsadaa waayo sakiba qalbay ani ahaantay markaad dhahaysiin qofka waa inaad kala maqnaatiin bil camal caadi waa qofka bil waa kala maqnaan kartiin intaa kalsooni isku qabtiin markastan inaa qofka wacda qasab maaha adi afar badan aa geliso relationshipka inuu asagana kusoo waca waa qasab markasta adi daawacdo kuma fiican caafimaadkan uma fiicna so qofka marka in badan kala maqan tihiin camal waa isku xiisaysiin waa iswacaysiin masaasaa kusoo wacaa masaada wici qofka lasii maxaa ku baraaweyn kartaa inuu qofku dhib ku jecel yahay lawiga camal daawici waase camal wici waaso aa wacdo markaas waxay ku tusinaysaa qofkaas inuu ku jecleen waayahay saaxiib sakiisi fiican badashay maasha allah asxaabta dhawaatiin horta aad baan idin salaamaya mar labaad iyo mar saddexaad anigu horta waxaan rabaa muqdisho inaan imaado fiisaha sharmaarkow fiisa rabaa
inta jacayl u tacaabata kula muqdisho aanu sheego kulaha fiisa waxaa rabaa muqdisho niyo muqdisho cidka xigta fiisaha garow soo qaada muqdisho soo marka marka niyo waxaa idin sheegaya mataqaanaa hadda fiiri waxyaalaha la yaabaysa waxaa ka mid ah guurka haddii la dhaho qofka markaa dadku ay isxulanayaan oo kale been inaan isku sheegno horta ma fiicna waxaa fiican maadaama dad dhalinyaro aan nahay inaan runta isku sheegno waxyaalaha aan la yaabin waxaa ka mid a qofku marka uu rabo qof inuu xusho kuma xulanayo waxa uu asaga nafsad ahaantiisa ay u fiican tahay wuxuu ku xulanayaa qofkan kale wuxuu yahay sida lacag ma leeyahay gaari ma wataa maaragtay waxyaalaha u baahan tahay oo dee iska nolosha dhammaanaysa raggiina waxyaalaha ku xulanaya waxaa ka mid a ma buuran tahay ma caddahay ma madowdahay ma gaaban tahay ma dheer tahay waa waxyaalaha isbedela marka waxaa la dhahaa dooqa isbedelaa la dhahaa qofkii kuma xulanayo qofkan dabeecad wanaagsan ma leeyahay qof waxa ugu muhiimsan horta qof lagu xushaa waa dabeecad wanaag been ma fiicna runtaa fiican waayo dabeecadda wanaagsan reerkay dhisisaa gabadha dabeecadda wanaagsani waxay marka ugu badan guurku dadku isguursadaana cidda ugu badan oo gacanta ku haysa u badan yihiin baan ka hadlaya waxa ugu badan oo guurka markaas la isguursado qofka gacanta ku haya waa dumarka gabadha ha dhahdo ifur ha tiraado afka ha ka tiraado laakiin qofka ugu badan oo ma aragtay markaa reerka gacanta ku haya gabadha u badan tahay waxaa kuu soo haray tan kale oo waxaa jirta marxalada ay dumarku maraan hadda anagu raggeena aynu gabdhaha ku cayrino ama aynu ugu dagaalno xilliyo waxaa jira gabdhaha aan waxba laga qorin onta ayaga nafsad ahaantooda maskaxiintooda xataa aysan u joogin oo kala jira aana meeshaan ka sheegin taasna marka anagu xanaaqno ayagu markay xanaaqaan oo waxaa laga yaaba adoon waxba aadan samaynin ama aadan waxba ku samayn dee gabadhaas oo caadigeeda ku tahay baa laga yaabaa in ay dagaal kugu qaado maxaa laga rabaa marka anagu waxaan samaynaa tii ayadu ay rabtay markaa u yeella oo sida ayagu ay rabeen buu yeella waxyaalaha ugu badan guurku lagu kala tagay taas nin baa wuxuu ku guursanayaa gabar buurnaan inay buuran tahay buu ku guursanay u guursaday oo dee buur waa nin aad u jecel gabdhaha burburan oo hadhowdii qoftii waa caatooday muxuu samaynayaa gabar kale banaanka raadinaya runba fiican mugta ama mid caata ah buu jeclaaday oo hadhowdii markuu guursadana saaxiibada brisa baasas ka dhajisay way cayshay uu naxaya mid kale raadsanaya macnaha waxyaalaha waxay dooqa isbedelo wey dhibaatada ugu badan dhalinyarada hadda maanta haysatana waa taas waa ku jeedaa xamsa waa cid kaa suura badan adi laftigaaga ma jirta yani adigu iska warhaynaayo mayda fiiri sharma adaa ka shaqayn kartaa oo qofta caawin kartaa oo jim geen kartaa oo u sheegi kartaa waxyaalaha la cunay iyo waxyaalahaas adoo saas ubin karto waa ku kalifa inaad